Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan idin wadaa qiso yaabkeeda leh oona murugadeeda ay aad u weyn tahay. Waa cunug yar oo 10 jira oo meydkiisa laga helay baaldi. Su-aasha ayaa waxay tahay yaa dilay? Intaanan qisada u guda gelin waxaan rajaynayaa inaad liketa, shareka iyo commentiga ay idinku caawisiin. Qisadan storigan wuxuu bilowgiisa marka wuxuu yahay waxaa bilaabatay marka ee 2022 December 12 ayaa askarta ayaa naag wacday waxayna ku tiri hey guriga hebel hebel guriga oo number hebel ah ayaa waxaa yaalo basementigiisa mayd wiil yar ah wiilka magaciisana waxaa la yidhahdaa Zayan. Askartii markii intii loo sheegay askartii way baxeen guriga ay aadeen waalidkay la hadleen waxay dhaheen ay informationkan ayaa na soo gaaray inaan waxaan jeclaan lahayn inaan fiirino inay inuu mayd basementiga ku yaalay in kale. Maamadii marka waxay dhahday war aniga basementiga mayd ma yaalo waxbana meesha kuma jiro ha yeeshee storigan waxaa abaabulayso ninkii aan kala tagnay girlfriendtiisa. Markasta way harais garaysaysaa telefoon ay iga soo wacdaa email igu harassment oo email igu samaysaa marba meel bay iga soo gashaa. Askari wuxuu dhahay aniga storigan xoogaa waa ila qalday wayla waan ku wareersanahay laakiin inaan fiiriya iska jeclaan lahaa si aan u xaqiijiyo. Habartan waxay leedahay hold up iskama soo geli kartid gurigayga adigoonan caddayntii dowladda aadan wadanin ku ogolaanaysa inaad gurigayga soo geshid. Askari marka wuxuu leeyahay waa sax sidaa ogeed ma soo geli kari laakiin waan soo qaadanaynaa hadii loo baahdo inaan soo galno. Maya telefoonka ma hayi laakiin waxaan hayaa emailadooda. So email ay soo saaraysaa oo caddaynaysa in la haras gareeyo. So askarigu baxaya marka informationka uu document gareynaa fileka uu gelinaya uu ka tegaya. July 23rd keeda mar 2025ka 2023ga markay ahayd July 23rd 2023 ayaa haddana waxaa la soo wacayaa askarta. Waxaa soo wacaya marka kuwa social workerka soo wacaya waxay leeyihiin hey waxaan rabnaa inaan welfare check ku sameyno gurigaas oo booqano si aan u ogaano xaaladda ilmaha ay ku sugan yihiin. Waayo waxaan qof baa ina soo wacay oo loo yaqaano Latricia waxayna leedahay guriga waxaa yaalo mayd oo cunug yara baaldi ku dhex jiro waxaan rabnaa inaan soo ogaano. Askartii markii la information ka helaan storiga information way dhegeysanayaan 25th waxay u imaanayaan maamada waxay kala hadlayaan hey information kana na soo gaar wax ma jiro way weydiinayaan. sidii markii kood waxay bilaabaysaa marka inay storiga ay deflect garayso dhad war hey waxaan ma jiraan waa lay haras garaya waa lay dhibaa oo maxaa la dhihi jire identity-gayga la xadabo FBI-da iyo IRS dadkaas ayaan la shaqaynayaa si aan identity-gayga u soo ceshan lahaa waxaana marka ma hay. Askartu way iska baxaysaa 25th markay ahayd oo December 25th July 2023 26kay soo laabanaysaa of July markay soo laabtaan ayagoo warranty wata imaanayaan. maamada waxay leedahay guriga ma soo geli kartiin warranty laan ma imaani kartiin inaad soo gashiin waa qalad. Marka waxay u dhiibayaan warranty waxay leeyihiin okay sidaa ma aha waatana warranty-ga qabso. Warranty-ga qabsanaysaa meeshay fadhiisanaysaa marka askartu waxay bilaabaysaa guriga inay baaraan oo ay dhan kastaba ka fiiriyaan. Intii kuwii baaritaanka ay ku maqnaayeen marka kuwa ayada la fadhiisanaya waxay leeyihiin hey nooga waran wiilkan Zion la dhaho ayaan rabnaa inaan ogaano waayo storigiisu uu inagu soo laabanayaa horta ko muu jiraa. Waxay leedahay ma jiro ilmahayga wax Zion la dhaho aniga maanan dhalin. Okay magacan intuu ka imaanayaa marka ma ogeeda qofkii idin soo sheegay asagoon weydiiyay ani laakiin magacan warka ma hay wixii sheekadii dhan waa in karta sidaa ma aha mas askartii baaritaan ay galeen say wax u baarayeen marka waraaqadii waxay wateen social worker waxaa ku qornaa marka magac Zion oo cunugii iyo informationkeedii magaceedii marka waxaa leeyahay waraaqadan iyo welfare-ka sidoo magacaaga marka intuu soo galeen waxay dhahday war aniga magacan maalintii horta marka ay welfare-ka ii imaanayeen waxay ahayd ilmo deriska joogay ilmo badan joogay so wixii meesha fadhiyeen bay magaca Zion ay iska maqleen Zion and then magacii ayay sidii maxaa la dhihi jiray ay ku sameeyeen ay aniga ugu dareen ma ahan cunugan aniga dhalaba ma marka hal idinka iloobay 23dii oo informationkaas ay heleen waxay ogaadeen marka 2021dii ayaa mar haddana qof kale inuu wacay askarta ayaa wuxuu ku dhahay maamadan waxaa la dhahaa Sushi cunugeedii ilmaheeda ay garbaduub u xirtay. askarta markay imaado marka waaga waxay ogaadeen hal marka tiriga markii loo sheegay cunugan maxaa la dhihi jiray wiil ay iska dishay aydan waxay dhaheen oo tirib hore hadii la nabtay likelihood haddana hadda waa la nabanayaa. So like now let's move forward. askarigii markay dhahday magacayga waa lagu qaraabanayaa oo wixii baarayeen ay wuxuu dhahay okay see magacaaga loogu qaraabana waxay dhahday kow ana cunugan kuma buuxsanin ceer kuma qaati taxi kuma buuxsadi identity-gayga waa la xaday oo warka ma hayay noloshaydii ayaaba laga xun yahay iyo waxay aan qabsaday horumarkaygii marka noloshaydii ay cariiri ku jirto bas intaa markay dhahday ayaa waxaa dhacday marka askartii ayagoo kuwii kale guriga ku maqan ayaa waxaa lasoo helay birth certificate-kii Zion marka waxaa leeyahay okay waaba saxan tahay maadaama aad leedahay waa lay dhibay birth certificate-kan asagana meel u yaal oo storigan maxaa waaye inaad meel gaarsiiso waaye waxay dhahday war birth certificate-kan iyadana wax weyn maaha anaan ifahansiinaya iyadana waxay tahay birth certificate-kan waxaa waaye
cunugan magacan horta waa magac la abaabul horta markay sheekada laysdhaafi waayo madaxa laysla galay ay askarta leeyihiin markay birth certificate special ay arkeen ay dhaheen ey been aad noo sheegaysaa knock it off waxa storiga iyo beenta iyo waxa ka bax hadda run ayaan rabnaa inaad nagula hadashid ay waxay leedahay okay run waan igula hadlaa laakiin ilmahayga ma layga qaadana inda run sheego waalidkayga iyo familkayga ma igu wici kartid say ilmahayga at least ayaga aan gacantooda ugu hubsado waayo ani ma rabi inaan ilmahayga waayo ilmahayga in la dhibo ma jecli ilmahayga inay iga rafaadaan ma jecli markaana waxay soo qaadaysaa iyada taarikh nolosheeda inay ka hadasho waxay leedahay aniga ayaa kusoo koray maxaa la dhihi jiray systemka ama ilmaha maaragtay dowladda qaataan dhibaatadeeda anaa ka warhayo dhibkeeda anaa og oo rafaadan kasoo maray anoo yar oo 15 jir ah ama 14 ilaa 15 jir jira ayaan ilmo dhalay marka uma rabi ilmahaygana inay dhibaatadaas iga maraan oo rafaadka iga maraan so at least family member ma igu wici kartiin oo ilmahayga iguma dhiibi kartiin askarta waxay dhaheen taa waan figure out garaynaynaa bafanaa horta waa inaan figure out garayno wiilkan maqan halkuu ku maqan yahay marka waxay leedahay horta wiilkan maba jiro maamadan marka marba storigeedu isbedelaa marba geesay kasoo gelinaysaa waxay isku dayaysaa systemka ay farsamayso waxay leedahay horta cunugan ma jiro markaas waxaa leedahay okay hinduusan jirin noo sharax waxay leedahay waxaa dhacday markaan Chicago deganaa hadda marka storigan wuxuu ka dhacayaa Illinois oo stateka Illinois ka dhacayaa waxay leedahay Chicago markaan deganaa ayaa waxaa dhacday ilaahay kuma darnaadee nin waxaa jiro ama qof waxaa jiro information bank uu sameynay ID-yada sida birth certificate-ka ID-ga qofka inuu jiro uu kaaga dhigaya ay dhahday qofkaas ayaan u tagay information-kan dhan ayuu iisoo sameeyey information-kan markuu iisoo sameeyey ayaa waxaa iga qaatay 500 information-kanne waxaa la sameeyey mar hore waxa dartaan ma ahan qofka xitaa ma ogi 4 sano 5 sano ka hor ay ugu dambeysay sidaa ogeeda xitaa warka ma hayin askarta waxay dhaheen okay so markii su'aalada lagu sii wadwaday waxay dhahdeen nimayo aniga lawyer la'aan saan iyo ma sii shaqaynayso okay bandaad lawyer doorato kulama hadli karay dhaheen waayo lawyer ayaa dalbatay marka okay ay dhahday maxaa la dhihi jiray garajka marka waxay dhaheen horta inta iyada hadalka ay diidaneed inay hadasho inay runta sheegto inay isdhibayso askarta marka waxay dhaheen ilmahan wax baan wareysanayna ilmaha gooni ayaa hadalka loo weydiinaa habarta markay maqashay ilmaha wax la wareysanaa ilmaheeda marka waxay ku dhahday lama hadli kartiin lawyer la'aan afka ma kala furi kartiin waa inuu no lawyer niila joogo qasab idinkuma ahan tan weyn ayay la hadlaysa waxay leedahay labadaada walaal kalena u sheeg inaysan aadan la hadli karin askarta waxay ku dhahday markay ilmahayga see lawyer la'aan ah uu idinla hadli karan waayo inuu lawyer joogo waayo si aad oo la hadashiin waxay dhintaa qaada qasab maahan waayo dad professional la hadlayo oo ilmaha la hadlo markii kiisas noocan ay dhacaan so dadkaas ayaa kiiskan ay u xirsaaran oo ilmaha la sheekaysan doona habartii waa u cuntami wayso marka instructionka ku soo celcelisay inay make sure garayso ilmaheeda inay sheekadan ka dhaadhacdo si u fahmaan inaysan askarta la hadlin now marka meeshii then askarigii walaaciisa si wuxuu dhahay okay maadaama lawyer dalbatay waan ku xiray waa dowladda afraad garaysa okay bas bara hadalnay dhahdaa hadane okay wada hadalnay sheekada ku soo laabatay way fadhiisteen hadalkii sii socday hadalkii marka waxay leedahay nimayahow markii storigeedii uu iskeeni la'yahay oo lagu daba degan yahay oo wixii shaqayni la'yiin ayaa waxaa la dhahay war adiga anaga runta noo sheeg cunugan wiilkan halkuu ku maqan yahay ayada marka inta ay hadlayso askarta qof kaley la hadlayaan oo meel kala fadhiyo oo asagana iyada waa dumar oo xog wareen loogu tagay si loo soo ogaado storiyada inay iskeenayaan iyada markii teedan laga dhegeysanayo dhinaca kalena storiga ka socda oo iyadana waxaa waaye si oo laisku fiiriyo inay labadan story isla socdaan qofka kale marka la wareysanayo waa gabadhii timaha iyada u dabi jirtay gabadha timaha u dabi jirtaa waxay dhahday sushi ayaa aniga ii imaaday waxayna iigu imaaday sanadkii markuu dhammaanayay dabeeqadiisii marka tintaana uu dabaya waxay igu soo qaaday story ii sheegaysay oo naxdin lah storygana wuxuu ahaa waxaa dhahday gabar saaxiibadeeda ah ayaa waxaa isdilay wiilkeedii markuu isdilay saaxiibadii wiilkii meydkiisi guriga u yaalaa marka waxaan ku dhahday oo may askarta wacdo may askarta ma wacayso way ka cabsanaysaa sidaa awgeed ayada ayaa haysato gurigu meydka u yaalaa marka anigana waa saaxiibadaydii oo caabi yidhahdo way arrinkan way ii sheegatay oo waan u damqanaya way ka dhegaysatay waxay dhahday storygii anigu ayay cuntami waaye walaashaydan waxay dhahday habeenkii waa sheekadii ayaan u sheegay waxaan dhahay qofan timaha maanta u dabayay sheekaas ila imaaday walaashay ugu war askarta wac sheekadan waa sheeka halise war waxaan dhahay aan waca maba xume xitaa magaceeda ma garanay so markii haddana sanadkii 2023 bisha afraad ay maraysa ayay ii imaaday dhahday naagti haddana iyadoo socoto oo haddana sheekadii ayaan isku soo qaadnay waxay dhahday war tinteeda hagaajisanayaa waxaan u socdaa ninkeyga waxaan rabaa inaan kala soo hadlo arrinka saaxiibteeda waayo saaxiibteeda arrinkeeda ayaa wuxuu yahay arrin u baahan saaxiibteeda waxay iga codsanaysaa inaan ilmaheeda u qaado oon aniga u hayo intay xaalkeeda ay ka figure out garaynayso waxaan dhahay dhahday marka okay marka maxay saaxiibtaada halkay wax u marayaan waxay dhahday marka saaxiibteeda waxay wax u marayaan cunugeedi weli u yaalaa aad bay u shaqaysaa si laba shaqo iyo maaragtay overtime ay galoosaa si ay lacag badan ku aruursato oo ay lawyer ku qabsato hadhoodii markii ay maxkamad sheekadan imaado si ay lawyerin fiican u heli karto
waxay dhahday marka oh okay storyga marka adigu waan ka dhageystay dhahday marka wiilka magaciisa layma sheegin laakiin inuu wiil yahay waan ogaaday inuu basementiga yaallo waan ogaaday laakiin inay iida dhashay warka mahay inay saaxiibteeda dhashay oo saaxiibteedana iida caawinayso ilmaha kale ka haynayso intay saaxiibteeda ka figure out garaynayso say wax ku xalin lahayd so storyga meedka weli waa jira askarta 2 jeer oo lasoo wacay loo sheegay gabadhan timaha dabayso storygan hayso marka waxay dhaheen okay gabadhan waa xiraynaa ayadoo waxaa la hey adiga waa inaan ku xirno waayo kiiskan ma dhamaystirna marka maxkamadda inaan jeelkan ku geyno waayo marka iyada way xireen marka intaysan xirin marka guriga laga bixin askarti way wada dhaqaaqeen gaarigooda ay aadeen gaariga markay aadeen hal askari wuxuu dhahay bal hey waa inaad garaajkan fiirino in case wax laga helo garaajka markii la tagay waxaa loogu tagay marka baaldigii oo ku jira meydkii cunuga oo bajamas qabo marka caddeyntii saa indhaha loo saaray habartii waxaa lahay marka adiga xerig ayaa tahay waayo bini aadan ayaad qarisay meydkiisa bes habartii markii la dhahay xirigaa tahay askartu waxay ogaadeen weekendiga actually gurigan keligeeda may joogin markay arrinkan dhacayeen waxaa la joogay ex husbandkeedi asagay raadiyeen waxay dhaheen hey arrinkan ayaa jiro waxaan rabnaa marka adiga qaybtaada inaan wax kaa ogaano waxaad ka ogtahay iyo xogta aad ka ogtahay wuxuu dhahay nimayow aniga maalin baa lay soo wacay markay ahayd December Christmaska ka hore ayaa lay soo wacay 2012kii waxaana 2022gii December 2022gii ayaa lay soo wacay intaysan Christmaska dhicin waxaana gabadha ay soo wacday dhad marka waxay igu tiri abo Zion ma uu dhintay xabadii isku dhuftay say ku dhici kartaa aan dhahay marka isla markiina hooyada ay soo gasho dhahay marka sushinaydan ay soo wacday ayadan waan ka qabtay dhahay hey what's going on camal xaalka see waay maxaa dhacay guriga maxaa ka qasan waxay igu tiraad markay ooynaysay way barooraneysay wixii meesha ka dhacay sheegaysay marka hooyada waxay ku leedahay hooyo Zion uu baxay habarta waxay dhahday soo xarow ku dheh banaankiinu aadamaha waqti dambe marka maamada adeegay ku maqan tahay suuqa marka gabadha waxay leedahay hooyo bixitaan banaan maahane Zion uu dhintay waa kanana uu dhigi baxay halkan uu yaalaa habarta waxay leedahay maxaa dhacay xabad ayuu madaxa iskaga dhuftay marka hooyadan waa hooyo xabad guriga u taalay oosan xabadihii aan qaar in moogtahay in ilmaha laga qariyo ama meel la dhigay ahayd inay meel ka dhigtay ahayd markay weydiisay why oo markay dhahday why iskugu dilay gabadhu waxay dhahday hooyo wuxuu ku hayay aabahayga ayaan u tegayaa aabahaygan u xiisay aabahayga marka dambena xabadda uu qaatay madaxa ayuu iskaga dhuftay habartii dulaaca ku furmanaayo way soo cararaysaa guriga imaanaysaa marka waxay isku dayeysaa wiilkii marka inay dhabar u dhigto CPR ay ku samaysay isku dayeysaa way seexin marka dhabar ay seexinaysaa bustay waxbay u dhigaysaa laakiin ogaato way la tacaalaysaa laakiin tacaalka waxaa waaye inay qarisay isku dayeysaa marka waayo dowladda waxay ka cabsanaysaa inta kale in laga qaato marka inta kale in laga qaatay ka baqday meydkii inay gubto xitaa isku dayeysaa oo aashis ay ka dhigto way ku adkaanaysaa waxay isku dayeysaa marka say ku qarin lahayd ayay falkiisa galaysaa annagii kale qolkii kalaan seexanay marka ay ooyinteedii waxay istaagi lahayiin anigu waan iska baxay u dhahay waxaan doontay wiid inaan iska soo cabo darooga maxaa dhihi jira xashiish aan iska soo gatay u dhahay xashiishkan madaxa qac ka siistay marka sheekadii markaan arkay marka waxaan dhahay u dhahay war wiilkan maadaama uu meyd yahay askarta u sheeg arrinkaana askarta hala wareegto ayagaa ka warhayaan waxay dhahday may waanu sheegi doonaa laakiin ii yarkaadii waxay wiilkayga inaan waqti la qaataan raba ma xuma u dhahay marka waxaan dhahay u dhahay aniga kolley hadda xalkan kugulama jiri kari ilmaha kale ayaan kaa kaxeynaa saddexdii kale ii dhiibtu dhahay waan baxay ilmihii aniga meel kale aan aadnay oo 3 bil anaa soo hayay 3 bil aan soo hayay marka aniga waxaan ka filanaya u dhahay waan ka rajaynaya inay iidana wiilkan ay askarta u sheegto ay processka askarta ay maraan marka maalmaha ka mid ah text message ii soo dirtay oo iyadoo maxkamadda joogta ah iyo waxay ii soo dirtay ma aragtay markay meydka la gubo dambaska meydka ayay ii soo dirtay baasha daasada yar ay ku ridaan oo si wejigiisa ku sawiranna way ii soo dirtay waxay markay ii leedahay camal baash waan soo dhameeyey wiilka meydkiisina waa kana oo waan soo gubay marka si process oo dowladda ay ku qanacsan tahay marka anigu waxaan isdhahay marka waa arrin fiican waxaan weydiiyo dhahay marka askarta asiga waxay weydiiyeen nihow daasada baaldi baa guriga yaalay how dhe baaldi u yaal baaldiga ma taabataa dhahay waan taabtuu dhahay okay baaldigan ku yaalaa dhahay waayo askarta remember baaldiga waxay kusoo arkeen garaashka inuu ku jiro oo meydka wiilka ku dhex jiray asaa dhahay marka baaldiga halku yaalay wuxuu dhahay baaldigan jikada u yaaluu dhahay guriga marka baaldi qashin maa maxaa jikada ma ogu dhahay laakiin baaldiga jikada ayuu yaaluu dhahay markaan ogaa waanan taabtay baaldiga intay ka keentay marka way soo gadatay dhahay iyadaa askaraad way soo gadatay aniga maalintii wiilka u geeriyooday wiilka yar ayaan baxay waxaan aad u dhahay $3 meelaha alaabta guriga lagu nadiifiyey dhiigii wixii ayaan soo gaday si aan ooga caawiyo ku nadiifiyo laakiin xalkan si aniga ii fahansiiso wuxuu ahaa u dhahay waa xal askartay u sheegi doonto oo ay dowladda la wareegi doonaan markaas waxaa la dhahay okay ilmaha ka warniyow ilmaha xitaa way carbiyayso dhahay ilmaha waxa waaye waxay u taran gareysay sida hadallada looga jawaabo marka ma ogi u dhahay anden waxaa la dhahay okay weligeed iyada qori ma isticmaasha haa u dhahay adig may kugu dhufatay haa way ugu dhufatay okay marka ma sheegtay may waanu qariyo dhahay waayo askarta iyo dowladda inaan faraha u geliyo ma rabin sidaa awgeeda waanu qariyo ma sheegin
okay guri waa la dhahay bas askartii marka ayaga waxay xukunka waxay ogaadeen ninka inuu warka haye laakiin uusan ogeyn uu leeyahay inuu informationkaas ii soo dirtay sidaa awgeedana ay arrinka halkaa yahay marka wiilka inuu jiro asaga la weydiina wiilka waa jira waa wiilkayga anaa dhalo dhahay marka aabba maa u tahay maya aabbahii dhalay oo biologically miihi laakiin hooyadiis ayaan qabay u dhahay sidaas waa inuu leeyahay wiilkayga waayo waqtigaan isla qaadanay waan isla ciyaari jirnay sawiraantiisan xitaa hayaa uu leeyahay sawiraantuu soo bixinaya uu tusaaya marka way kaga qancayaan bas maamadii sidii waa la xiraa iyada jeel ay ku dambeynaysaa jeelkii markii la geeyo January 2024 markay tahay dembiga way qiranaysaa waxay leedahay ay dembigan waan galay marka waqtigaas ay dembiga qiranayso 204 maalin ayay jeelka ku jirtaa marka dembiga iyada lagu soo oge waa dembi ay qarisay maaragtay qof meyda ay dowladda ka qarisay marka dembi kale laguma haynin waayo dowladda markii meydkii ay u direen autopsiga meesha meydka lagu baaro la fiiriyo sababtuu qofkan u dhintay waxay soo ogaadeen qofkan inuu xabad isku dhuftay self inflicted wounda oo xabadina madaxa kaga dhacday oo xabaddaa darteedana uu qofkan u dhintay bas ayadii marka waxaa la dhahay dembigeedii uu yahay qariska wiilka waxaa lagu xukumay marka 2 sano labadaas sano saa idin sheegay 204 ka mid ah horay ayay usoo dhaqday waayo dembigan intaysan maxkamadda aysan xukumin ayay jeelka kusii dhammaysatay markay dembiga horey ka qiratane waxaa waaye 2 sano ayaa xerigaagu yahay marka magaalada maxaa la jira stateka Illinois sharcigiisu waxaa qofka hadduusan dembi maaragtay xoog iyo digaal iyo waxaasan ahayn waxaa waa xerigiisa waa 2 sano marka waxay dhaheen 204 hore waan ku xisaabaynaa inta ku hartana jeelka ayaad ku dhammaysanaysaa marka qisadan halkaas ayay ku eg tahay waana qisadii wiilkii again loo yaqaanay Zayan iyo hooyadiisa Sushi waana wiilka meydkiisa hooyadiisa baaldiga ay ku qarsatay waana basementiga yaalay muddo 8 bilood ah waxaan idin rajaynayaa maalin wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu